yaraanteedii xaafadda deganaa jiray oo la yiraahdo suuqa xoolaha. suuqa xoolaha waxay ahayd deegaan weyn oo ballaaran, suuq weyn oo ahayd oo aad u shidan xilligaas. adigoo 99kii ilaa 2003 inta u dhaxaysay. marka waxa soo xasuustay oo maanta niyadeyda ku soo dhacay in aagaas ku noolaa oo maaragtay cajiib aha. waxa la dhihi jiray wiiqle gaargacan ayuu ku shaqaysan jiray. marka wiiqle wuxuu ahaa nin dhalinyaro maaragtay oo xoogaa daruufi ka muuqato oo gaargacanka isaga xamaasha oo balwadna lahaa. marka inta badan dadka maynan xushmay jirin, maynan qadarin jirin oo maaragtay in amaan iyo wanaag ku dhaxlay muunan ahayn. haddana sidaas oo tahay markaan soo xasuustay ama uu kalifa inaan sheekada ka sheekeynaa waxa weeye waxaan soo xasuustay hoosh u hayay ahmiyadda lahayd iyo sida muhiim u ahayd. wiiqle xilligaas wuxuu suuqa xoolaha ugu jiray booska ambulance. markii qof dhaawacmo asagoo ordaayo gaargacankiisa la ordaayo imaan jiray, gaargacanka qofka dhaawaca saari jiray una la ordi jiray. kaaga daranay suuq xoolaha isbitaal lagu daaweeyo dhaawac kuma yaalo oo xilligaas kuusan oolin. waxa uu soo geeyay isbitaal la yiraahdo Cali Xasan oo ku yaala warshada baastada iyo suuq xoolahana qiyaas ahaan waxay isu jiraan 2 kiiloomitir 2 kiiloomitir ilaa 3 kiiloomitir qiyaasad xilliga intaas isu jiraan asaas jecelahay. marka waxa oo cajiibka oo aan la yaabo waxa tahay xilligaas ninkaas qof walba dhaawac nooc walba yahay meel walba ka soo jeedo asagu baa qaadi jiray dhaawaciisa. baabuur badan meena jirin oo sidaan hadda u qulqulshaa mooto warkeeda haba sheegin. haddana sidaas oo tahay muunan ahayn nin bulshada magac ahaan magac ku dhaxlay oo magaciisa yacni wanaag ku dhisan yahay muunan ahayn oo dadka sidaas u meenan arkayn. marka halkaas waxa ka cad dadka Soomaaliyeed guud ahaanba inaysan kala garanaynin qofka hal doorka u ah oo muhiim u ah oo yacni howl muhiim u haya iyo qofka dhibaatada ku hayna iskala aqoon.